kulanti wacan wanaagsan asxaabta youtube-ka waadin salaamay magacaygu waa Caasha Caagane janaalka dawanaysan waa isla Caasha Caagane maanta waxaan idin wadaa barnaamij xiiso badan oo aan janaalkayga ka soo dayn doono barnaamijkaas wuxuu la magac baxay haweenkeena waxa marti ku ah Ishwaaq Jaamac oo aan kaasi halkan waraysiga uga qaadi doono صاحبيال وان سلامني هدي اجنال ku cusub tahay fadlan waxaan ka codsan lahaa subscribe ka like share comment ina ku qabato waxa idin sheegi rabnaa ayaan idin sheegi rabnaaye waa ku iska daa marka waxaan ka hadlaynaa barnaamijka ku saabsan yahay maadaama barnaamijkan uu bilow yahay haweenkeena waxaan tagi doonaa goob walba oo ay haweenka joogaan oo aan kaas barnaamijkan u soo gudbin doonaa mawduuca Ishwaaq wuxuu ku saabsan yahay maxaa ka dhiman haweenkeena Ishwaaq soo dhow janaalka Caasha Caagane aad baan u dhawahay Caasha janaalkaaga aad waan heer walaala laakiin aad baan u faraxsanahay maanta youtube-kaaga inuu ku soo dhigto Caasha Caagane dhammaan taageerayaasha iyo dhammaan salaamaya qaanadkaaga ku xiran janaalkaaga Caasha Caagane eegana waa u mahad celinaya sida sharafta leh ee maanta u dhageysanaya ama u daawo doonaan kiniinkan haddaan barnaamijkan u guda galo haweenka waa dhowr nooc weeyaan haweenku markay gabdho yaryar oo hablo yaryar oo soo koraya ay yihiin dhowr waxyaalood ay jecel yihiin gabadha jeceshay oo maxaa tahay dadka adduunka magac kula ay noqoto oo waxay leedahay alla inay hebel meeshu gaaray adna goobad gaaray tahay heerka gaadha gabadha waxay jeceshahay inay waxbarasho u barsato life gabadha waxay jeceshahay inay maalintiis dhaqdo habeenkiina ay hurdo markay soo kacdana dee magaalada auto aado shukaansigeeda aado meelaheeda iska marmarto marka dee kartida bini'aadanka waa loo kala dhashaa misaan aaminsana ahaan waa tahay Ishwaaq waa mahadsan tahay laba qayb ay noo soo qaaday Ishwaaq oo ah gabari waxay rabtaa inay horumar samayso gabadha kalena horumar way ma ku fikraysa xataa inay samayso waa tay ku sheegtay Ishwaaq ah inay iska soo kacdo iska noolaato xataa reer kala gudooda iska joogto nafteedana ay wax ku soo kordhin dadka kalena ay wax ku kordhin waxaan rabnaa marka gabdhaha de haweenkeena maxaa ka maqan waa kuwaas kuwan ka hadlayna oo rabeyna ku sheegay inay wax ka maqan yihiin marka qofka noocaas oo kala yani maxaa la gudbo laga yaabo gabdho qaar noocaas inay daawo doonaan inaysan ka fakarin inay shaqaysato yani nolosheedii kale gabadha kale sida u nooshay laga yaabo xataa gabadha kale inay ka labis badan tahay ka hagaajis badan tahay ay xataa ka dad badan tahay marka dad qofka noocaas oo kale oo nolosha saas oo yani boostaas fariistay oo kale sidoo ugu gudbi karaa oo marka gudbi karaa booskan ah inuu yani noloshiisa markuu sameeyo dadka kale horumar u gaarsiiyo Caasha waa runta laakiin dad waxa jirta ku tashta qofka xoolihiisa oo aan ku tashan barba adigu shakhsiyan ahaantaada meel iska soo saaro oo wax qabso saagaala ku fikir dadnada si doonaan bay u noolaadaan waxay leedahay kaligaa baa tahay ninkuma daba socdo hooyaan ku sugan walaal baan ku sugan aabaan ku sugan adigu shakhsiyan ahaantaada u baashaa waxa rabtaa meesha aad waxa rabtaa sameey gabadhan waxay ku fikirtaa hooyaa ka soo tagtay ama aabbaad ka soo tagtay ama walaal ka soo tagtay adigii waa ku kala mustaqbal baad u baahan tahay inaad saagaala tagto wada qabtaa sidee heerkan marxaladan ku jirto ugu gudbi kartaa sidee u noqon kartaa qof isku dheelatiran oo isku oo dadkiisana wuxuu qaban karaa adiguna wax qaban karaa dadkan kalena oo islaamka ama Soomaaliyeed meel kasta ku joogaan oo caawin kartaa dadna kuma fikiraan salaam wa rahmat dadna kuma fikiraan inay muxuu taayo isheeg ama wax qabsadaan yes karibu it's okay hadda bilowday dadku isku mid ma aha qofka wuxuu jecel yahay inuu ku fikiro noloshiisa ama heer ku gaaro marka qofka inuu isku tashto waa wanaagsan tahay in lagu tashtana waa wanaagsan tahay laakiin hada tiraado dee qofka lagu xiisan ku tashanaya horta anu siiba gabar markaan ka hadla gabar marka tahay ma ku dee gabar waxa la wixii karaa haddii lagu qabo waa lagu eegnayaa dee gabadha nin baa qabaa leedato inuu ku imaanayo dadku ugu soo warinayaan dee waxbaa lagaaga hagaagay markaad shaqaysanayso kale matalanba business aad joogto ama adigu ka shaqeey ama adigu lahaa dee dadku waxbay kaaga hagaagayaan waxaa la oranaya war qofka waa qof wax qabsan
وهذه مثلا بدي لغة يابا إنه ضد سعيد يعني فاهم النقطة أما ضد أظن ضد النقطة أما ضد الصوماليات وكلا نقطة أما قف أو بقى أركب كيرا ودنا نشق السنة تبقى عن فكرة دعاء لا هاي نسكت مركز دمركا اسكمد معها صح هنا وحج عشا هاي إني هير قاعدو قبل نصوصتو نبطو وحقبصتو إن جعل إني حوق إذا ما شاء جعل إني عقل جادو كنا نبطو جعل إيادو أولي نسكت لصوتان تيدو هنا يا هذا البلاد اللي كوش خيسو إني كوش خيسو أي كوش خيسو هير الكيس كتشتو هاي الكعبة كرتيدا إلهي كسر كل إسرائيل إن ماما سوماليات دا واحد حق لا لابن بي أوروب مني هذه ينو واحد فكرة هذا كنت أنا مساكين وقرب هذه مركز دمر الصوماليات سكوتشيان قارنا واتهاي كعبة ورم ساسواي قارنا دي وتشعليهن يجوا إني ما أعرف هاي لصاء هذا كان لقاء سيدا يلا يعني markaan ka hadalnay in qaybtii hadda tarkan leesay ah inay yani qof ku tiirsanaato bal qaybta kale ah dumarka dhameystirta gabadha shaqaysanayso dadkeedii kaafirayso wax baratay hamigeedii markaasi meel u jihaysay oo kaleeto maanta yaa badan aan isdii karaa gabdhahaas iyo gabdhaha kaleete iyagoo aan wax qabsanin haddii la isbarbar dhigo weliba aan magaaladan aan joogno waddankan aan joogno Kenya magaalada Nairobi xaafadda Islii oo kale marka loo soo qaato kol tusaalo soo lagama helayo gabdho lagu dayan karo adiga ka mid tahay waa laga helayaa gabdho lagu dayan karo laakiin waxay u badan yihiin gabdhaha ku tashta dadka been ma Nairobi waa la iskaranaya dadkiisa la isma tilmaamayo laakiin dee waxa la jigjigiira wan istaqaan bay dhahay waqooyiga moogta magaalada waa la iskaranaya haddii dee xagga ay loo dhaadhaco ma fahanteen marka gabdhaha aanan waxa badan boqolkiiba boqol markan anigu fiiriyay aan eegay ahaantayda marka ka fikirkayga waxa badan boqolkiiba boqol gabdhaha ku tashta xoolaha ragga runta fiican la isku sheego la iskaranaya Nairobi la isku mudumanayo xoolaha ragga ku tashta si u tashanayaan marka waxa ku tashanayaan ma rabto inay shaqaysato ma rabto waxa rabto inay habeenkii hurido dharaartan inta isku jiido wixii la isku jiidiyo daawada anaga de ilaahay baa midabka noo uumay casirkii markay qorraxdu dhacdo baa bariyaya isku kala kiciso magaalada ay qabanaysaa alla ninkay aragto bay ka shoognaysaa horena waxaa loo yiri xoolo rageed bay Soomaalida farana ka tirsan feerana ka xisaabsan وتفيرها سبحان الله قروي لا رجع حلوه حكم يعني كرتي ها حكم يعني كرتي لا حمد وحدين السي انكسي يقد انكسي بعد مركي قبلها كنت شنو حلوه هالي كده الشيخ شريف يجري على ستوب ودمو يدي كان ستوب ان لا دحاوي يعني marka waa gartay hadda waxaad weerar cad aad ku haysaa gabdhaha shaqaysan yani furtan aad ku mugday waxaad leedahay yani gabdho lagu dayan karo laakiin markii hal iyo laba iyo saddex way jiraan Soomaali oo iyagu aan baan anigu magacaabeen gabdhaha salaamaya muskaramaya ma sha Allah aad baan u salaamaya gabdhaha gabdhaha oo kale isku tashteen idinku isku tashtaan imla qad cawaaya waxbaan duubeena hay sorry ترى ده محمد ورديان كاروا كالو فين أنا ورديان قلت كان نشوفنا اسكت ليه مكرتان صحابتي اللي قالين ضد النص وقالين مركا وما سنتين هاي شو قصيبه مركا وحان الله قبلها وانا سلام يا لا سو صارتين قبلها كانوا الصوماليات شقاني عيب وقت هذا انه شقيستو يدكيسو او وقت إن الشقيستو او انت ديرتها لما يرتبوا عاد كانوا سحيستو adiga gabar yar maxaa ka sheegay maanta gabar yar oo maanta subaxna fiican inaad maamo oo ilmo dhashay aan ku dhahay maanta maamooyinka ilmaha dhaleen ayaa ka karti badan gabadha of course waxaad arkaysaa meeqa maama maanta yani horta gabadha yarta hadda adduunka ma warqabto mugtahay hadda adduunka u horeeya soo maaha laakiin maamada waxbay soo aragtay that's why ay iskugu tiirsan tahay ilmaheedii iyo shaqadeedii iyadii iskaga adag tahay yaa wax badan kaabinaysa aad iyo qofka bilaadanka waxa fiican inuu aad iyo qofka istageelo jir soo wada markay aad iyo gurigan yara hooyada dadkeeda aad iyo maanta laba qof aad iyo ana hadda maanta waxaan qof nolosheeda maareysan soo garaysan marka laakiin barigan hooyada la joogo inay yar baan ahay inkastoo inay yar ahaa laakiin anigoo jecel la iyo ogoleen inaan shaqaysto oo wali dhir jiro wax baro yaa
baan jeclaan jiray hooyadii baana ku bartay hooyadii baa business ku soo bartay laakiin sooma dhihi karo aas-aaska koowaad gabadha si ay u noqoto gabadh dhammaystiran oo wax ka dhinayn horta qof walba ma dhammaystirno laakiin at least meesha ugu wanaagsaneed gabadha ay isgaarsiiso aasaaska wuxuu ka bilowda soo lasma dhihi karo waalidka oo gabadha markay yacni soo korayso inay ku ababayso sidii u noolaan lahayd keliya gabdhaha in waxbarasho bas lala geeyo aan yacni la barin hawshii guriga oo kale waa la yaqaanaa guryaha oo kale waxaa ka shaqeeyaan jaariyaal ka shaqeeyaan shaqaalaha ka shaqeeyaan gabadhii way weynaanaysaa yacni wax ma la baraayo laakiin waa jiraan hooyooyin ku ammaanan horta waan dhihi kara doorkoodii ka soo baxay gabadha markay yar tahay jikada barayo sida wax loo kari barayo hanaankii wax ku qabsan leed noloshana barayo horta maasha allah hooyada horta khayr allah siiyo dhaqan wanaagsan bay soo bartay diin bay soo bartay akhlaaq bay soo bartay waxay bartay sida dadka loola noolaado wallaahi waxaan garanayaa caashii anigoo yar hooyaday dhihi jirtay gabar baa tahay laga yaabaa inaan dhinto adiguna dhinto inaan aniga dhinto inaynu laba qaarad kala tagno wayna dhacday wallaahi waan xasuustaa markay erigay dhehaysa markaan intii markaan xasuusta samay bay dhihi jirtay sidii dadku dad wanaagsan oo ku jecel ay ku noqon qofku xumeeyo adoon waxba dhihi ka tagaa noqo naag iska adag noqo naag kartideeda iyo wanaaggeeda iyo sharafteeda ilaashanaysa marka waxaan dhihi lahaa maanta hooyada hooyadii ugu soo qasay hooyooyinka dhan soosaa laga rabaa inay hooyo kastana waa u mahad celinayaa hooyo kasta Soomaaliyeed adduunka meel kasta joogto waxaan kula talinayaa gabadheeda hooyada barto nadaafadda barto akhlaaqda barto dadka loola dhaqmo barto berri ka maalin sidii hadday qurbad tagto si ula noolaan lahayd inaan dee maanta waddankaadi baa kasoo tagtay dadkaadi baa kasoo tagtay waddan aada garanayn dad aada garanayn baa laakiin sida ula noolaan lahayd inaad barto inaad nolosha bini'aadanka waa dhowr qofta dee qofna uu si u nool yahay marka inay si wanaagsan ula noolaato gabdhaha sida wanaagsan lagu soo aqriyo oo Kenya soo kala ama meelaha waalidkoodna wax way ku reebaan iyaga nafsad ahaantooda marka gabdhaha waxaan kula talin lahaa karbaashka kala noqday karbaashka kala noqday wax wanaagsan isku waanina walaalaha aad way fiican tahay marka waxaan oran lahaa wanaagsan tahay waxbaa qabyo idinka ah wali waxbaa qabyo idinka ah marka waxa loo baahan yahay wixii qabyada idinka ahaa inaad dhamaystirtaan gabar walba oo Soomaaliyeed barnaamijkeega uu u furan yahay haweenkeena iyo maxaa dumarkeena qabyo ka ah oo taxana inoo ahaan doona waxaana toos uga daawan doontaa channelka Caasha Caagana fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe ku qabo share iyo comment iyo like ishwaaq ayaan siinayaa fariinteeda ugu dambayso ee ah haweenkeena maxaa ka maqan barnaamijka haweenkeena haye walaahi haweenka horta waxyaalo dumarka weyn markay ka hooyooyinka dhammaan marka waxaan oran lahaa gabdhaha dhalinyarada oo dee wadankii baa laga soo tagaagay qof kasta dee maanta qofkuu galay nin ma jiro waalidkiis dayacaya laakiin dadku kartida isku daygeeya marka waxaan aniga kusoo gabagabeynaya caashay waxa weeyaan gabdhaha fadhiga ha laga kaco xoolaha ragga lagu tashanaya ha la iska daayo nima shaqaysan bay tirada shaaxa waa ka xaaraan shaqaysta casirkii magaalada loo dhaadhacayo dadka hal iska daayo waxa la qabsado magaalaha la aado oo waan wada aadnaa waaw wada aada saxbi qofkii si qaab sharaf la aado dee ku tashtay idinku waxaad xoogin ku soo saartay laakiin nin xoolihii waxa ku tashay walaw ku qabo uu yahay waa ninkaaga wuxuu ninkaaga haysto horta dee naaga kale kama tiido dee wuxuu ninkaaga haysto laakiin ha ku tashanaa ragga xooluhu xoolo rageed fara ka tirsan feerana ka xisaabsan Soomaaliha shaqay waxaan hayaa gabar tiri inta nin yani dumarka wixii raadiyaan soo lama oranay wixii raadiyaan nin lacag leh wixii raadiyaan inta nin lacag la raadin lahaa soo ani lacag ma sameyn karo of course gabar walba sidoo ku kartaa gabar kasta ku waa sameyn kartaa lacag nin xoolihii ninkan xoolihii انت حواليس رادينيسو حواليس كنت شنيتو ولا من العقل سمعني كاوا كرتيسو سو صار كامليتو سغالباد كدلت سغال بوش بقولو ويان بقولنمدا كنت كاس كدير لكن عقلي كرتيدو سو صار سميدا كتنتا كميد باكت
adigu xoolo nin xoolihiisa raadinay horta nin xoolihiisa ku tashan xaram عليه وانا حرام قطعا حتى من السيوف كوبرتها وكوبنا لكن ما كتر كين ياكل شرعي كوبنا دين كوبنا سواء marka waxa ay ka maqan inuu horta qalad uu naga dhacaa sax aad qalad uu naga dhacaa malaa'ig laakiin qofku waxa wanaagsan inuu wixii ka tanaadulo ku toobkan oo heedi qofkan ha ku tashanay bal adigu isku tasheen isku tasho marka waxaan oran lahaa xoolo rag ha ku tashanaa xoolo qof kalena ha ku tashanay taada idinku taada nafsiyan ku tasho shaqayso ilaahuma barabara halna nacala dadkana u jeedin caasha oo taajiriin nin ma jirto level hoos aan saas waa guri markii la dhisay jaran jirto laga bilaabo ganacsigan waa isla saas marka nolosha waa loo dadka ganacsanaya dadka ganacsatada ah dadka taajiriin markii ka sheekeynay noloshooda waa naxaysa hadda ninkan oo KFC-dan ka dhisan 130 wadan ka dhisan gurigiis waxa la inta shahaado haystaa lagu dhacay taanku ku dhacay wuxuu isku dayo ku gaarsiiyay intaas meel yar gurigiis uu jikun ku sameeyay maanta intuu taga jinkiisa in caalam sawirkiisa ku qoran adduunka dhan uu gaaray marka nolosha waa loo safraa meesha kula gasho waa la galaa marka qofna ha ku tashan suuqi soo kac shaqadaada gal habeenkii aad u mahadsantiin asxaabta ishwaaqna ma santahay inta sayna muuqaalka ku koobena saaxiibayaal mar walba ila socda ishwaaqan kaaga mahadcelinayaa saaxiib sida barnaamijka quruxda badan ay qayb qaadatay mar kale asxaabta waxaan idin leenahay waa mahadsantihiin channelka dad ku cusub tahay subscribe like iyo share iyo comment